kadib qaraxii ka dhacay meel u dhow isbitaalka Al-Macmadaniya ee Gaza isla markaasna mar qura ay ku dhinteen dad ka badan 500 oo ruux oo isugu jiray dadkii dhaawaca ahaa ee isbitaalka lagu daweynayay iyo dad u soo barakacay ayaa waxa eedeymo isdhaafsaday ciidamada gumeysiga Israa'iil iyo xarakada Jihaad Islaamig. Israa'iil waxay ku eedeysay ururkan in gantaal ay soo tuureen uu isbitaalka ku dhacay, balse cadeemihii goobta laga soo aruuriyay waxa cadaatay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeeyeen isbitaalka. haddaba maxaan ka ognahay ururka Jihaad Islaamig oo inta badan xulufo la ah ururka Xamaas? warbixintan waxaa naga soo codsaday shakhsi ka mid ah walaalaha ku xiran barteena. sidoo kale qof walba ka mid ah walaalaha nagu xiran inta aan awoodno tixgelin ayaan siin doonaa codsiyadiina insha Allah. balse intaan u guda galin faahfaahinta, haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, subscribe saaro channelka, sidoo kale like saar muuqaalka si uu meel fog u sii gaaro. mahadsanidin. magacaygu waa Bashiir Cadow. ku soo dhawaada warbixinta. Israa'iil waxay sheegtay in xarakada Jihaad Islaamig ay mas'uul ka ahayd weerarkii dhacay fiidnimadii 17 Oktoobar. Israa'iil oo doonaysa inay iska wareejiso eedda xasuuqa ka dhacay isbitaalka ayaa soo dhudhoobtay been abuur aan xitaa shaar loo gelin karin. waxayna sheegtay in dagaalyahanada Islaamig Jihaad oo doonayay in ay gantaal u soo ridaan dhanka Israa'iil uu ka qaldamay gantaalkii kuna dhacay isbitaalka, balse isla markiiba Jihaad Islaamig ayaa beenisay sheegashada Israa'iil. haddaba maxaan ka naqaanaa ururka hubeysan ee Jihaad Islaamig? dhaqdhaqaaqa Jihaad Islaamig waa kooxda labaad ee ugu awoodda badan kooxaha Falastiiniyiinta kadib Xamaas. xaruntiisuna waxay ku taalaa magaalada Gaza sida uu xusay wargeyska New York Times. Xamaas iyo Islaamig Jihaad labadoodaba waxaa dhaqaalaha iyo hubka ugu badan ku taageera dowladda Iiraan. Israa'iil iyo Mareykankana waxa ay ku shaabadeeyeen ama ku dareen liiska kooxaha ay ugu yeeraan argagixisada, balse sida xaqiiqada ah argagixiso ma ahan ee waa ururo xaq u dirir ah, sidoo kalena difaaca qadiyadda walaalaha Falastiin. dhaqdhaqaaqa Islaamig Jihaad waxaa la aasaasay sanadkii 1980 waxaana lagu aasaasay marinka Gaza. sidoo kale wuxuu xafiiso ku leeyahay daanta galbeed. ururkan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah kooxaha hubeysan ee Falastiiniyiinta ugu mayalka adag. waxa uu diidaa hab kasta oo la isugu dayo in Israa'iil iyo Falastiin la heshiisiiyo, wuxuuna mar walba ku adkaystaa ururkan in marka hore gumeysiga Israa'iil oo isaga baxo guud ahaan dhulka reer Falastiin. sidoo kale wuxuu aaminsan yahay in qoriga caaradiisa ay tahay wadada kaliya ee uu xalka ku jiro. intee ayay la eg tahay awoodda ururkan? way adag tahay in la helo xogtii ugu dambeysay ee tirada dagaalyahanada u diiwaan gashan Islaamig Jihaad, waxaana qiyaasaha sanadkii 2021 ay muujinayaan in tirada dagaalyahanadooda ay u dhaxayso 2,000 ilaa 5,000 sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. falanqayaasha militariga ayaa rumaysan in dhaqdhaqaaqu uu haysto kayd u gaar ah oo isugu jira gantaalo, madaafiic, baasuukiyaal iyo gantaalada lidka taangiyada iyo kuwa lidka taangiyada ee garbaha laga rido. garabka militari ee ururkan waxaa lagu magacaabaa Saraaya al-Qudus, wuxuuna Kataa'ib al-Qassam kala qayb qaatay howlgalkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ugu magac dartay duufaanta al-Aqsa. sidoo kale dhaqdhaqaaqa Islaamig Jihaad ayaa dhaqaale iyo khibrad ka hela dalka Iiraan, waxaana lagu qiyaasaa dhaqaalaha uu ka helo Tehran $10 milyan sanadkii. sidoo kale wuxuu xarun ku leeyahay Beirut iyo Dimashq. sidoo kale sanadihii lasoo dhaafay si xowli ah ayuu dhaqdhaqaaqu isugu fidinayay daanta galbeed, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. waa noocee xiriirka kala dhexeeya Xamaas iyo Islaamig Jihaad ayaa inta badan xulufo noqda marka ay Israa'iil dagaal ku soo qaado marinka Gaza, waxaana ciidamadoodu ay wadaagaan howlgallada militari. dhinaca kale, si ka duwan Xamaas, Islaamig Jihaad kama qayb qaataan doorashooyinka baarlamaanka ee Falastiin, mana muuqato inay ku haminayaan inay dowlad ka dhisaan Gaza ama daanta galbeed. inkastoo ay inta badan si dhow u wada shaqeeyaan, haddana Jihaad Islaamig iyo Xamaas waxaa ka dhexeeya loolan. kala duwanaanshaha istiraatiijiyadeed, caqiido iyo shakhsiyadeed ayaa muddo dheer hortaagnaa in ay midoobaan ama isku soo dhawaadaan. dhaqdhaqaaqa Jihaad Islaamig ayaa inta badan u shaqeeya si ka madax bannaan Xamaas, waxaana uu inta badan diiradda saaraa iska hor imaadyada iyo dagaalada ka dhanka ah ciidamada gumeysiga Israa'iil.